kulanti wacan daawadayaal soo dhawaada warka haweenimo ee warbaahinta Ogaal Media qodobada wararkaana caawa ku soo qadanayna waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo gaaray go'aan isla markaasna kulan degdeg ah isugu yeeray guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi oo laba garab u kala jabay. 5 senatar ayaa laga soo baxay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Baydhabo magacyadooda iyo weliba sidoo kale senataradani xisbiyada ama meelaha loo badinayo inay taageero buuxda ay siinayaan ayaa qayb ka noqon doona wararkeena caawa ee warbaahinta Ogaal daawadayaal. sidoo kale qaybaha dambe waxaanu ku falanqeyn doonaa xiisadda dalka Itoobiya iyadoo ciidamada TPLF ay sheegtay inay ka takhalusi doonto ciidamada federaalka Itoobiya halka dowladda Itoobiya iyaduna ay sheegtay in ay ka takhalusi doonto ciidamada TPLF. xaaladda wararkii ugu dambeeyay ee gobolka ayaanu daawadayaal ku soo qaadan doonaa wararkeena maanta xilli dalka Itoobiya ay taageero militari oo xoog leh ay ka heli doonaan dalka Turkiga ayaa qaybaha dambe ee barnaamijkeena daawadayaal ku falanqeyn doonaa. sidoo kalena maxkamadda ku taala dalka Falastiin ayaa waxa ay maanta xukun ku fulisay Sheekh Jarax oo baaqday taas oo sababtay maanta in dibadbaxyo waaweyn ay ka dhacaan gudaha dalkaasi ee Falastiin. qodobadaas weliba kuwa kale xiiso leh daawadayaal ayaanu ku soo qadan doonaa wararka maanta ee warbaahinta Ogaal gaar ahaan warka caawa daawadayaal. waxaa idinla soo codsinaya anigoo daawadayaal wariye golf yare u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaas oo dhammaystiran. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka habeenimo ee warbaahinta Ogaal waa 2 bisha Agoosto daawadayaal 2021. ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa waxa uu kulan degdeg ah isugu yeeray guddiga doorashooyinka xubnaha gobolada waqooyi kuwaas oo khilaaf xoog leh uu ka dhaxeeyo sidoo kalena ay u kala hogaaminayaan 2 guddoon oo midba gaar oo guddoomiye u doortay. warqad ka soo baxday xafiiska wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa lagu soo gudbiyey dalabka kulankani iyadoona qoraalka lagu yiri xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu idin farayaa inaad ka soo qayb gashaan kulan muhiim ah oo idinku yeeray ra'iisul wasaaraha kana dhacaya xafiiska saacadu markay tahay 12 subaxnimo. qoraalkan ayaana uu ku siixan yahay wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha. dhanka kalena afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo warbaahinta la hadlaya isagana sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu maanta soo gabagabeeyay la tashadii uu la lahaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaaji ra'iisul wasaare ku-xigeenka Maadi Guuleed kuwaas oo muddooyinkii dambe uu ka dhex taagnaa khilaaf salka ku haya guddiga doorashada gobolada waqooyi. waxa uuna yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka markuu tixgeliyay doorashada kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ay bilaabato waxa uu go'aan ku gaaray in la guda galo doorashada waxaana ra'iisul wasaaruhu kulan degdeg ah bari isugu yeeray xubnaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee Siyaad. waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli maanta ilaa shalay baraha bulshada ay qabsadeen guddiyadana qaybaha kala matalaya iyo xubnahooda iyagoona sidoo kale sheegaya in haddii doorasho hal dhinac ah la qabto ay iyagana doorasho taas barbar socota ay qaban doonaan. weli daawadayaal waxaad naga daawanaysaan warbaahinta Ogaal Media. waxaa maanta magaalada Baydhabo xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed lagu doortay 5 senatar oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ka imaanaya maamulkaas kuwaas oo horey ugu soo baxay liiskii uu soo saaray madaxweyne Laftagareen. doorashadii maanta oo ahayd midii labaad ee doorashada aqalka sare ayaa waxaa ku soo baxay 5 senatar halka ay ku tartamayeen 10 xubnood iyadoo qaar ka mid ah oo soo bixistoodii horey loo ogaaba. kursiga koowaad waxaa ku tartamay musharaxiinta kala Zamzam Ibraahim Cali iyo Shariifo Xaaji Cismaan waxayna guusha kursigaasi raacday Zamzam oo heshay 81 cod halka Shariifo ay heshay 4 cod oo kaliya. beesha ay ka soo jeedana waa beesha Jiido. kursiga labaad ayaa isagana waxaa ku tartamaya Ayaan Aadan Cabdullaahi Farxiyo Nuur Aadan waxaana doorashada codadka ugu badan ka soo hoysay Ayaan oo heshay 79 halka Farxiyo heshay 8 cod waxaana sidaas ay ku raacday guusha kursigaas Ayaan oo iyaduna ka soo jeeda beesha Hariin. kursiga saddexaad waxaa ku tartamay Aadan Cabdinaasir Maxamed iyo Maxamed Xasan Aadan 80 cod waxaa helay Aadan waxaana halka Maxamed uu helay 6 cod oo kaliya. aadan Cabdinaasir wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda xilgaarsiinta ra'iisul wasaare Roble ayuu ka tirsan yahay. waxaana la ogaa inuu soo baxayo wuxuuna bedelayaa senatar Xuseen Sheekh Maxamuud oo kursigana ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay. waxa uu ka tirsan yahay xisbiga UDP ee madaxweyne Xasan Sheekh Aadan ayaana ka soo jeeda beesha Hadamo.
kursiga afraad waxaa ku tartamayay maxamuud maxamed cabdinuur iyo nuur baabul cabdow. waxaa guusha ay raacday maxamuud garbe oo 76 cod helay, waxa uuna ka soo jeedaa beesha geelad. kursiga shanaad waxaa isagana ku tartamayey oo maanta isagana u dhaxaysay xuseen maxamed daahir iyo xasan maxamed nuur. waxaa guushay raacday xuseen oo helay 71 cod, waxa uuna ka soo jeedaa beesha boqolle hore. doorashadan maanta midda indhaha lagu wadaya waxaa inta badan ku soo baxay xubno hore loo sii ogaa ama loo sii saadinayay inay soo bixi doonaan, kuwaas oo ahaa kuwa ay si taageero buuxda u siinaya villa Soomaaliya, halka qaarkood ay ka tirsan yihiin xisbiyada mucaaradka oo UDP uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud. waxaana sidoo kale iyadana la sugayaa in caawa ama berito ay soo baxaan liiska xubnaha golaha aqalka sare ee senatarada u tartami doona maamulada galmudug, hirshabeelle iyo puntland, iyadoona loo badinayo in ugu dambeyn caawa ama berito ay maamuladana saddexda midkood ay soo saaraan senatarada ama musharaxiinta u taagan xilka senatarada, maadaama wakhtigu uu gawaabsiyay islamarkaasna guddiga doorashooyinka ay ku baaqeen in si degdeg ah loo soo gudbiyo magacyada xildhibaanada u tartami doona doorashada aqalka sane, halka arrinta gobolada waqooyi iyadu weli ay xiisadii ka taagan tahay ilaa haddana wax heshiis ah aan laga gaarin. ugu dambeyn daawadayaal, dowladda Itoobiya ayaa weli ku tilmaamtay dalabkii fagaalada TPLF ee ka dagaalanta gobolka waqooyiga Tigreega. wasiirka arrimaha dimuqraadiyadda Itoobiya ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in TPLF ay ku riyoonayso awood siyaasadeed aanan jirin, waxa uuna digniin culus u diray hogaamiyaasha kooxdani. wuxuu sheegay in gebi ahaanba uu yiri falaagadani laga saari doono tuulooyinka gobolkaasi marka uu sida uu sheegay dowladda dhexe uu ka dhammaado dulqaadka. ninkan waxa uu beeniyey sheegashada falaagada TPLF in la go'doomiyo gobolka Tigreega, wuxuuna sheegay in mas'uuliyadda dowladda ay tahay xaqiijinta in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo gobolka. waxa uu intaasi ku daray inaysan jiri doonin wadahadal lala galayo TPLF oo ku tilmaamay koox argagixisa, islamarkaasna jawaabta ay bixinayaan ay tahay oo keliya buu yiri mid ay iyagu iskaga caylin doonaan. falaagadan ayaa waxay haatan gacanta ku haysaa caasimadda gobolka Tigreega ee Mekelle iyo magaalooyin kale oo ku yaala gobolkaas kadib markii ciidamada dowladda halkaasi isaga baxeen. TPLF ayaa haysay xukunka gobolka Tigreega kahor inta ciidamada dowladda dhexe aysan ku duulin, kadib weerar ciidamada TPLF xilligaasi ku qaadeen xero ciidan oo ku taalay waqooyiga dalkaasi Itoobiya. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal warka habeenimo tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.